Saraakiil iyo sidoo kale ciidamo ka tirsanaa ee kuwa Puntland ayaa la sheegay inay hub iyo sidoo kale saanadba ay kala gooseen ciidamada Puntland isla markaana iyagoo la baxsanaya hubkaasi ay qabteen ciidamada maamulka ee Puntland. Hubkaasi ayaa la sheegay in laga soo furtay markii hore kuwa daacishta ee ka dagaalama buraha Calmiskaad, kuwaas oo la sheegay in hubkaasi markii hore asalkiisana uu ka yimid dalal shisheeye oo kala duwan oo qaar ka mid ah dalalka Carabta ee looga keeno hubkaasi si ay ugula dagaalamaan Puntland. Waxaase la sheegay in hubkaasi uu ahaa gurmad uu ka soo gaaray daacishta ee dalalka kale adduunka joogta isla markaana ay soo gaadsiiyeen daacishta ku sugan ee buraha Calmiskaad. Dowladda Puntland ayaa la sheegay in saraakiishaasi ka tirsanaayeen ciidanka Puntland ay gacanta ku dhigeen iyaga iyo sidoo kale ciidamadii ee hubkaasi doonayay inay la baxsadaan. Soo dhawaada daawadayaal, halkani waa RNN Somali TV. marka hore intaan u gudagelin faahfaahinta warkan, like saara muuqaalka oo subscribe dha channelka RNN Somali TV. soo dhawaada. caadi waaye sii wadana aniga. Saraakiil iyo sidoo kale ciidamo ayaa la goosay hub, kuwaas oo la sheegay in hubkaasi markii hore ay gacanta ay ku dhigeen hay'adaha ammaanka ee dowladda isla markaana la doonayay in hay'adaha si rasmi ah gacanta looga geliyo. ayaa la sheegay in ciidamo iyo sidoo kale saraakiil ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay doonayeen in hubkaasi ay la baxsadaan. Dowladda Puntland ayaa hore war ugu soo saartay hubkaasi oo ah in loo soo gacmaha loo geliyo hay'adaha ammaanka ee Puntland isla markaana hubkaasi lagu wareejiyo hay'adaha shaqada ku leh hubkaasi iyo sidoo kale wax kasta ee halkaasi tiilaba. Ciidamada ayaa la sheegay in iyagoo saqdhaxa ilaalinaya hubkaas iyo wax kasta goobta oolayba ay iska qaateen isla markaana goobta ay ka baxsadeen. Ciidamada Puntland iyo sidoo kale dabagal badan ay sameeyeen ciidamada ammaanka Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay raggan saraakiisha iyo sidoo kale ciidankan oo la sheegay in hubkaasi ay la baxsadeen iyagoo la sheegay iyaga iyo hubkaba in ciidamada ammaankaba xilli ay baxsad ahaayeen ay ku qabteen mid ka mid ah magaalooyinka Puntland. waxaase la sheegaa in imika loo gacan geliyay hay'adaha ammaanka ciidankaasi isla markaana loo taxaabay xabsiyada. sidoo kalena dowladda Puntland ay sheegtay inay rajeynayso inay horgeyso maxkamadda awoodda u leh inay maxkamadeyso ciidanka iyo sidoo kale saraakiishan ay la goosay hubka. halkaas waxaase la sheegaa in hubkaasi oo muhiimadda ugu weyn uu yahay in hubkaas marka horeba uu ka yimid dalalka shisheeye, kuwaasoo la sheegay ay taageerayeen kooxda ISIS isla markaana ujeedka ugu weyn ay ahayd in gurmad ahaan loo soo gaarsiiyo kooxda ISIS wadamada adduunka dacaladeeda ay kala joogaan ay soo gaarsiiyeen lasoo dhexmarsiiyey badda si tuugnimo ah isla markaana gudaha loo soo gelay Puntland. waxaase la sheegaa sidoo kale in halkaasi ay ahayd keydka hubka kooxda Daacish ee buraha Calmiskaad ee gudaheeda. hub aad u tir badan iyo sidoo kale cuntooyin oo raashinka oo keydka ay saanad looga talagalay ciidamada ISIS, kuwaasoo dagaal adag ee kula jiray ciidamada ammaanka ee kuwa Puntland iyo sidoo kale saaxiibada caalamka ee Mareykanka. ayaa la sheegay in halkaasi looga tagay goobtooda isla markaana ciidamada loo yaqaano daanyarada Puntland ay gacanta ku dhigeen. kadibna waxaase la sheegaa in ciidankan iyaguna ay ka mid ahaayeen kuwa la jira ciidanka ay gacanta ku dhigeen xilli saqdhaxa isla markaana ay la carareen amaba ay la fakadeen. kadibna ciidanka ammaanka ee Puntland ay gacanta ku soo dhigeen raggan saraakiisha iyo sidoo kale ciidankan. halkee ayay ka soo galeen ciidankan ee hubka la goosay? ciidanka waxaase la sheegaa inay ka mid yihiin ciidan beeleedyadii ee halkaasi joogay isla markaana si gurmad ahaan ugu biiray ciidanka ammaanka ee Puntland si ay u difaacdaan maamulkooda iyo dhulkoodaba isla markaana la sheegay inay diyaar u ahaayeen in dhiigooda ay u daadiyaan sidii nabad ay u heli lahaayeen isla markaana ammaanka Puntland darteena ay u dhimanayeen. qabaa'ilada halkaasi ayaa la sheegaa in kuwaasi ay ahaayeen ciidamo qabaa'ilada dowladdana ay siisay tuutihii iyo sidoo kale hubkii ay ugu deeqday. kadibna waxaase la sheegaa in qabaa'iladan ciidankoodii hogaaminayay sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada daraawiishta ee Puntland, kaasoo la sheegay inuu hogaaminayo ciidankan. ugu dambeyntii waxaa damac ka soo galay in hubkii laga soo furtay buraha Calmiskaad oo la sheegay hub maangal aan ahayn iyo sidoo kale hubab casri ah oo noocyadiisa ay kala duwan yihiin
iyo raashiin iyo sidoo kale rasaas oo tirabeel ah, kuwaasoo la sheegay in ISIS ay isku diyaarinaysay dagaalkii ugu dambeeyey ee mid ka mid ah inay weerarto magaalooyinka ugu waaweyn ee Puntland, halkaasi si rasmi ah gacanta ay ugu dhigto, ay ula wareegto, ama in gebigeedaba ee lagu laayo intii halkaasi joogtay. waxaase la sheegaa in sirdoonka Mareykanka iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya ba iska kaashadeen sidii loo ogaan lahaa ee xogtan oo hubka soo galay ee gudaha ee Soomaaliya. waxaase la ogaa markii hore xogsi ah la helay in hub uu soo galay ee gudaha dalka ee Soomaaliya, gaar ahaan ee buuraha Calmiskaad ee Puntland xeebaha bari ayaa la sheegay inay soo galeen. waxaa kadibna ciidamada ammaanka ee daayirada Puntland loo yaqaano howlgal ay fuliyeen oo ay la kaashanayaan ciidamada ee Mareykanka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sahashay in si fudud gacanta looga dhigo. kooxda Daacish oo kasii daciiftay guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan ee gobolka bari, ayaase qorsheenaysay inay qaado weeraradeeda ugu dambeeyey, taasoo ay ahayd ujeedadeeda ugu weyneed in gacanta ay ku dhigaan mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Puntland, oo halkaasi ay gacanta ku dhigaan kadibna inay halkaasi maamulaan fariisimaha ugu horeeya, amaba sidoo kale ukumahoodii halkaasi ay ku beertaan, iyo ama inay ku dhammaadaan ama ay ku baaba'aan intii halkaasi oo joogtay dagaalkaasi. hubka sidaas u culus iyo saanadahaas iyo sidoo kale raashinkaas gargaarka wax kasta oo halkaasi tiilay waxaa u gacan galay ciidanka daanyarada ee Puntland. ugu dambeyntiina ciidankan ayaa la baxsaday, kuwaasoo markii dambena gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka ee Puntland, la sheegayna in la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh. karta iyo saraakiisha gudaha u galay Garowe ee la qabtay ayaa lagu eedeeyay inay hub ay kala gooseen furimaha hore, islamarkaana la qabtay iyaga oo baxsada. saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa sidoo kale sheegay in haatan baaris lagu hayo rag loo soo xiray, waxaana sidoo kale lagu wadaa in la horgeeyo cadaaladda. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada la xiray ay hayeen ciidan aan si rasmi ah ugu tirsaneen kuwa difaaca Puntland, balse ay ka yimaadeen dhinaca beelaha, waxaana hogaaminayay sarkaal hore oo ugu tirsanaan jiray sida hore idinkugu sheegay. si kastaba Puntland ayaa xooga saartay dagaalka Daacish, waxaana haatan sidoo kale gabagabo maraya howlgalka Hilaac ee ka socda buuraha hoostooda ee gobolka bari ee maamulkaasi.